الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo hadal doona dhacday ka dhacday wadankaas Hindiya waa aniga oo maslax nasiib dhacdo ka dhacday wadanka Hindiya oo arday wadankaasi ku qasabtay inay siiyaan surweelada si loo baaro dhiiga caadada waqti hore ee warbaahinta Hindiya ayaa waxa dib ugu soo laabtay xiriirka aan wanaagsaneyn ee dhiiga caadada ku dhaca gabdhaha da'da yar maxad ku yaala gobolka Gujarat ee dhaca galbeedka Hindiya ayaa waxa gabdhaha ardayda ka ah waxay la kulmaan fuquuq ku aadan dhiiga caadada ee ku dhaca macallimiinta haweenka ayaa ku qasbay ardayda inay bixiyaan surweeladooda si uu cadeeyaan inay qabaan dhiiga caadada 68 gabdhood ayaa si qasab ah fasalada looga soo saaray oo la geeyay suuliga halkaas oo gabar kasta lagu qasbay inay bixiso kastumadeeda si loo baaro dhiigeeda caadada caadada ayaa waxay talaaladii ka dhacday magaalada Huj gabdhaha ayaa waxay arday ka yihiin macadka gabdhaha ee Sharisahaja dhanka kale sida uu qabo sharciga Hindiya ayaa haweenka qaba dhiiga caadada aan loo ogolayn inay galaan macbadka Hinduuga iyo jikada iyo sidoo kale inay taabtaan ardayda kale xilliyada cuntada ayaa waxaa la rabaa inay fariistaan meel ka fog ardayda kale inay nadiifiyaan weelasha ay ku cunteeyaan iyo fasalada waxa kale oo la doonayaa inay fariistaan kuraasta dambe ee fasalka sida la rumaysan yahay haweenka ku dhaca dhiiga caadada ayaa waxaa dalkaas Hindiya loo yaqaanaa inay yihiin dad wasaq ah isla markaasna looma ogolo dumarka Hindiya inay ka qayb galaan munaasabadaha diimaha iyo kuwa bulshada sanadihii la soo dhaafay dhaqamada guracan ee ka dhanka haweenka waxa loolan ugu jira si loo ciribtiri lahaa aqoon-yahano iyo da'yarta u dhashay dalkaasi waxaa jira dhacdooyin muujinaya in dhibaato lagu hayo haweenka uu ku dhaco dhiiga caadada gaar ahaan haweenka ka soo jeeda qoysaska saboolka ah ee aanan helin waxbarashada ama aanan helin cid u dooda waxayna talaabadan ku reebtaan noloshooda saameyn dhanka caafimaadka ah dalalka Indonesia, Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo dalal kale ayaa waxay haweenka siiyaan maalin fasax ah markuu ku dhaco dhiiga caadada waxaana sidoo kale talaabadaas sameeyay shirkado gaar ah daawadayaal intaas ay noo ogtay barnaamijkeeni maanta inta mar kale aan ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo